wiil Soomaali oo ku nool wadanka Canada baa wuxuu ceebeeyay oo soo qarxiyay fanaanada ugu weyn wadanka Mareykanka. Fanaanad nafsadeeda ka iibisay shaydaanka oo ka tirsan ururka Illuminati-ga oo lacag badan haysto milyaneer ah. wiilka marka wuxuu sameeyay sawirro uu ku sameeyay AI-ga artificial intelligence-ga video sawirro uu ku sameeyay oo yani ayada oo sameynayso yani sawirro akhlaaq darro ah yani waa fahmi kartaa way fahant sawirro akhlaaq darro buu ka sameeyay oo been ah markaasuu Twitter-ka ku faafiyay kabacdina sawirradii waxa daawatay 7 milyan iyo ka badan asaga 7 milyan fees bay heleen laakiin dad kale oo badan baa soo dhigtay oo fees badan bay sawirradii heleen marka waxa dhacday qoftan waa qof lacag leey ah oo fanaanad weyn ah yarku uu isqarinayay hada Twitter-ka wuxuu ku soo qoray aniga yaa soo heli kara inay si kasto naagtan awood u leedahay aniga waxa iga ma qaadi karto kabacdina qoftan qof la jana waaye waxay la xiriirtay White House-ka lawyeerinteeda la xiriireen Elon Musk baa la xiriiray Twitter-ka maamulihiisa iyo CEO-ga Twitter-ka la xiriiray waa la soo qarxiyay asaga waraysi oo dhan iyo akoonkiisa meeshuu degan yahay wax dhan baa la soo ogaaday waxa la soo ogaaday inuu Canada ku nool yahay magaciisana Subeer la dhaho dawladda Canada way inkireen oo inuu yani Canadian yahay saxaafadda waa laga qariyo waxa la dhahaa Somali citizen la dhahaa social media oo adduunka oo dhan arintan haysata isbuucii la soo dhaafay arintan dhacday laakiin social media ilaa up to now way haysataa marka arinta kale oo naxdinta la wiilka Soomaaliga haysto waxa waaye qoftan waxay leedahay lawyerin waaweyn yani lawyerin adoo dambiile ahayn dambiile ka dhigi kara yani isla caawi waxay ka dhigi kara inaad tahay murder kiis weyn ay ku gelin karaan dhiiqay ku gelin karaan marka ayada waxay dhahdaa legal action baa ka qaadaya bay dhahday legal action yani waa fahmaysaa wasaga waa maxkamadda laga dacweeyay adigu hadii kiiska ku cadaado de gabadhan maaha gabar Soomaaliyeed waa gabar Mareykanka u dhalatay gaaladaasna xuquuqda gabdhaha iyo waxaas way in u doodaan bay iska dhigaan abtigaagan waa ku daayay waxay u badan tahay 25 sano 15 sano leen dhanaanto in qalka loo gelin doono wax walba filo